ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgal ka dhan ah kooxda argagixisada Al-Shabaab ka sameeyay deegaanada hoostaga degmada Owdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Inta uu socday howlgalku waxaa lagu qaarajiyay maleeshiyaad ka tirsan kooxda argagixisada Al-Shabaab, gaar ahaan guutada Gorgor ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Cutubiyada kaga sugan degmada Owdheegle ayaa sameeyay howlgalka kaas oo ka dhacay deegaanada Mubaarak iyo Daarusalaam. Taliye ku-xigeenka guutada Gorgor oo la hadlay warbaahinta codka ciidanka qalabka sida ayaa sheegay in howlgalkan uu ahaa mid qorshaysan, isla markaana ciidanku ka sameeyeen deegaanada Mubaarak, Wariirilow, Daarusalaam, halkaas oo ay isku urursanayeen maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab. Muddooyinkii ugu dambeeyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgallo ka dhan ah kooxda argagixisada Al-Shabaab waxay ka wadeen gobolada bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Maxamed Cali Sabriye, warbaahinta codka ciidamada, Owdheegle.